waqti wacan daawadayaasha sharafta badan dhammaantiin waxaanu idin leenahay jumca mubaarak maanta oo ay taariikhdu tahay 14 January 2022 waxaad naga daawanaysaan waa Alool TV wararka caalamka ee xul iyo xaqiiqa barnaamijka maanta daawadayaal waxaanu idinku haynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo si ba'an uga falcelisay ama uga dagaalantay in madaxweynaha Somaliland ay ka joojiso safar uu ku tagayo dalka Mareykanka iyo guul darrada ka soo gaadhay safiirka Soomaaliya u fadhiya Washington. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland wasiir Ciise Kay ayaa dhawaan baarlamaanka Somaliland ka hor sheegay safar madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dhawaan ugu boqolayo dhanka Mareykanka. safarkan ayaa sideen xog aanu ka helnay safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya ee Washington tibaaxayso in safiirka Soomaaliya halkaas u fadhiya Cali Shariif Ahmed inuu si adag uga dagaalamay isagoo isku taxalluujiyay in uu safarkaas baajiyo ama gabi ahaanba meesha ka saaro. dowladda Soomaaliya ayaa muddadii uu talada hayay madaxweynaha hadda muddadiisu dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si adag uga dagaalamaysay in ay xakameeyaan socdaalada ama safarada madaxweyne Biixi. haddaba tan iyo intii wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland loo magacaabay maamulka cusub ee uu hogaaminayo wasiir Ciise Kay iyo ku-xigeenkiisa Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa laga soo sheegaya in ay hantiyeen gacan sareynta ay kaga gacan sareeyaan xukuumadda federaalka Soomaaliya. safiir Cali Shariif ayaa kadib guuldarrada uga soo hoyatay isku daygii hor istaaga socdaalka madaxweynaha waxa wararkii u dambeeyay ee Alool Media heshay ay sheegayaan in uu bilaabay lacag ku bixin uu ku dhaqdhaqaajinayo dad loogu talagalay in ay mudaharaad ballaaran kala hortagaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi halka bulshaweynta inteeda kale ay qorsheynayso soo dhaweyn kal iyo laab ah oo loo diyaarinayo madaxweynaha Somaliland. haddaba wajigabaxa safiir Cali Shariif waxa uu weheliya rabitaanka dowladda Mareykanka oo warbaahinta dalkaasi tabinayso in aqalka cad diyaar u yahay isu soo dhawaansho intan ka dhow oo ay la yeeshaan Somaliland. dhanka kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wararku tilmaamayaan in uu cadhaweyn ka qaaday guuldarrada siyaasadeed ee la soo diristay safaaradiisa Mareykanka taas oo loo badinayo in dhawaan bedelaad lagu sameeyo oo loo soo magacaabo hoggaan cusub. si kastaba ha ahaatee arrintani waxay guul weyn u tahay xukuumadda madaxweyne Muuse si gaarana wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiinteeda u sarsaraysa. waa hagaag daawadayaal haddaad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir adigoo mar walba barnaamijyada la wadaagaya asxaabtaada si aad uga qayb qaadatid horay marka Alool TV. inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa amaana Allah.